maalmaha waxaynu maqlaynay qolo jabhadoo jabuuti kale xadaysa oona awdal baanu xoranayna halkaa taa kama inaan filayn hadday satana taa ka noqotay wixii ka dhasheen bay arki doonaa haddii alla somaliland dhulkeedu ma iibin cidina iibin kari mayso xasan ma maamulo arrintaba aan nabadilo ka dhacayn een laysku afgareen in laysugu imanayno waxa weeye xasan iyo inta la caqliga xamar joogtaa waxay u qabaan inay somaliland ahayd gobollo ka mid ah soomaaliya oo xorriyad dowlad kale ka qaatay oo gobolladeediio iyagu ay leeyihiin taladeeda iyo maamulkeeda iyo muskeeda leeyihiin bay u qabaan calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marweyn ummadda somaliland guda iyo dibadda meela joogtaba waxay noo guuro maanta inaynu ku guulaysanay inuu inoo hirgalo muisamkii qaranka jamhuuriyadda somaliland oynu in badan u baahnayn oo dalkeenu tabaayey oo ah meesha lagu sunti doono taariikhdeenii oo in badan dayacnay dhismaha muisamka qarankao dhan baa ka wada qayb galay talo duco tamar iyo hirgelin aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qaranka somaliland oo dhan inay hirgeliyeen dhismaha muisamka halkana waxaa weligii meel taariikhi ah qiyaastii 1930 baa halkan la aasaasay haddaanay weliba ka horreyn oo markii isticmaalku joogay dagaalkii labada adduunka ka hor ayay taladooda halkan ummaddu isugula jirtay oo wixii aqoon iyo talaba laga qaadi jiray sidaasaa khilada lagu bixiyey waxaa kolka hore laga furay magacaamad qur-aan oo adiga gelinka hore ay ku dhigto qur-aanka ilaa isticmaalkii laga helayna waa halkii dagaalka xorriyadda laga soo bilaabay ee laga galay waxay ahaan jirtay xaruntii jimciyaddii loo jiray SNL lixdankii ku guulaysatay tirada ugu badan ee baarlamaanka waxaa ku soo korodhay allah u naxariisto kala barbariya cawl cilmi oo ahaa meerkii magaalada ee keenay fikradda hindisaha in diyaaradii dadka heshaysaalka la saaro oo ka taagay qodobadeeda iyana waxay noqotay marxalad labaad oo dhiirigelinaya xusuusa taabana isagaa lahaa farsamadeeda fikirkeedii horreeyey maalmihii u dhisayeyna dad badan oo aviationka yaqaanay oo garoonka usho ah oo kala tashaday fikrad aada u wanaagsan bay ahayd maantana wata inoo hirgashay muisamka waxaa laga rabaa qof waliba oo somaliland meel buu wax ku kaydinaya caalamku waxaa dhistaan museumya meel taariikhda kala duwan taariikhda ciidamada taariikhda baayac mushtarka taariikhda farsamo yaqaanada taariikhda suugaanta tafanaaniinta waa cilmi dhan oo museumyada boqolaal baa laga dhisaa meel walba oo aad ku arkaysa qaar 5,000 oo sano ka hor wixii la qabanayay inaguna qofku cimrigiisii intuu jiro haddii u barato 80 ah qofku maalinta dhinto ayaa ugu dambaysa wuxuu qabtay iyo qaranka iyo dowladda markaa waxay noqon doontaa insha allahu bilowgii iminka waxaa lagu dheereynay oo loo badiyey in qolo walba meel loo helo bilowda hadhow markaynu hore marrana la kala mid walba ay kala baxday meel gaara dhisato isaga intaasaan ku dhaafi arrimaha maanta geeskaga jira waxaa taabtay wasiirka khaarijiga oo howlaha dowladda qaabilsan laakiin laba qodob baan soo xusayaa ka koowaad waxa weeye 3 cisho dhaafay aad baa miidiyaha caalamka iyo kalookalku uga hadlayay somaliland iyo soomaaliya hadallada dhex maraya waxaa laga yaabanahay dadku hantida waa kala leeyahay taariikhda waa kala leeyahay 26 Juun waa maalintii xornimada somaliland oo muran kama joogo somaliland baa leh waxa yaab oo colaaddu ka bilaabmaysaa waxay xamar ugu dambaadintay ugu qaybsatay waxaan xusaynaa 26 hadday oran lahaayeen oo afkiis xasan ay ka soo bixi lahayd 26 ay gobolada qaatay somaliland waa maxkamada ingiriisku waxba ma ahaateen wuxuu ku bilaabay waxaan xusaynaa 26 Juun maalintii gobolada waqooyi gobolada qaateen arrintaba aan nabadilo ka dhacayn een laysku afgareen in laysugu imanayno waxa weeye xasan iyo inta la caqliga xamar joogtaa waxay u qabaan inay somaliland ahayd gobollo ka mid ah soomaaliya oo xorriyad dowlad kale ka qaatay oo gobolladeediio iyagu ay leeyihiin taladeeda iyo maamulkeeda iyo muskeeda leeyihiin bay u qabaan
halkaa markay joogtaba waa halkii lixdankii la isku dubaay habeenkii ay qaadateen iyadoo xorriyadda ee la mideeyey labadii baarlamaan qalloocii ka dhacay weli kama waantoobin koonfurtu xasan sheekhna wuu ku sii liitaa oo carab u balbalaariya sidee loo wada hadli karaa sidee u heshiin karaa laba nin oo nina yahay aniga jaac baa la yidhaahdaa ka kale leeya kuma aqaana anaad la magactoo magacayga ta qofka mid aan tahay aniga waxay tahay qof tahay kuma ogoli oo caqliga kuwa xamal ka taliya taasina waa colaad soo socotay 30 sano iyo 30 ka dambeeyey 6 sano iyaan marayna Somaliland maalintii dhowtay ciidda waday xasan wahab kor buu qayliyey wuxuu yidhi anigu waan ogolahay Itoobiyaanka in aan badsiin haddaan Soomaaliya Somaliland u tirsanaa waxaanu doonaynaa waxaa leeyahay xabashidu waxa Itoobiya waxay qaadanaysaa dhul Soomaaliyeed ee ma aha wax laga heshiiyey oo kale iyo lahada ah ee waxaa leeyahay dhulkaa qaadan maysid oo anaga ilaalinayna xamar baa ilaalinaya Somaliland dhulkeeda xasan sheekh baa ilaalinaya xasan sheekh nooha maamulka markaa ugu jiray haddana taariikhdu ku qoranayaa wixii ku dhacay Somaliland inay ahayd sharci in diyaarado lagu duqeeyo in madaafiic lagu duqeeyo in dadkooda maanta waxaa loo ooyayaa gaza ayuu adduunka oo dhan tacsiideynaya 40 kun baa ka dhintay 3 bilood ee May iyo June iyo July iyo 14 oo sidii u haysay 50 kun oo shicibaa lagu dilay Somaliland waxaana dilay dowladda xalal joogtay waxaa la mid ah kuwa madaxda loo heertaa ku raacsan ee leh wax dadku u istihaay maxaa la siiyaa dowladda iyo qaran dhan baa hubkeedu ku haysan dadka wixii kale ka dambeeya 2002 baalay oo cadeeyay inay ku dhinteen dagaalka in ka badan 200 oo kun oo reer Somaliland oo aan hubaysnayn inteena maanta dhageysanayso Somaliland gudihiisa wuu yar yahay qof aan qoyskooda mid yar ka dhigo wuu yar yahay qof aan dhaxin dhalinyarada reer markaa saddex sano teemayay mid aabihii iyo waalidkii iyo awoodii aanay dhaxin mid aan waalidkii ugu dhiman dayac kanaaca iyo oo fureen dabalihii ka dhacay doocad iyo haddii aan lagu leeyahay meel loo qaxay abokorde baarkii leeyahay sida yani waxa weeye dadka wixii ku dhacay iyo waxa lagu hadlayaa ismada haddii xasan sheekh ay ciidamadu iibinayso ama garoon ama deked garoonka berbera garoonka muqdisho iyo dekeda muqdishoda wuxuu ka iibiyey Turkiga oo uu laamaanta ku jooga xerada ugu weyn ee ciidan ee Turkiga banaanka dowladda ku leeyahay xamar buu ka siiyey Somaliland dhulkeeda ma iibin cidina iibin kari mayso xasan ma maamulo waxana ka tari maayo wuxuu go'aanahay laga gaaro maalintii labaad waxay ku saab ku hadlay oo la iska hadda inay gari markaa adu ba iska yiri dameero loo sheeg haddaad intaa soo dhaafisana soo dhawow hadday wax kugu hareen dalka Somaliland waxaa maalintii labaad uu sameeyey wuxuu isku yeeray golihiisa xukuumadda waxay tamiyeen oo ku aragteen 8 qodob soo saaray kuwa dabageli maayo xasan wuxuu yiri argagixisada goosadka iyo argagixisada labada shaqay goosadka iyo argagixisada waa cadow maanta joogo waxay xooga saarayna oo ay xoogoodu isu geeyaan in la dagaalamo goosadka akhriya wuxuu qoray kuwa dagaalka argagixisada goosadka haddaba yaa goosadka wayaale حسن وحدة فرسية يتلعن لي إنه هلا بدو الولود أو سيمان أو ورانتينات توكل في هذه أيلول دوري كبعد لا أيلو كان بحناي مركي أيلو تسوي حين دوري إنك سووا أنت هذا كعبة فاهمين حسن حور عواي وحن وضع على بيننا والبوس كان رسول مالنا إيوه الحسن قوة wuxuu reebay heshiis baa la bilaabay oo la heshiiyay al-shabaab qadar bay ismariyaan dhawaan koob iyo tobankii bishii Juun buu taa ka iclaamiyay Norway isaga oo jooga
وهدي أي مياران الشباب وانو ليش يلنا halka qoladiina research baa samaysa iyo qoladiina siyaasadda faalaysay barka soo saara waxa soo socda halka ka iman doona waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirkooda iga horreeyay maalmahan waxaynu maqlaynay qolo jabhado jabuuti kale xadaysa oo la awdo baad xoreeyna halka taa kama inaafay hadday satara taa ka noqotay wixii ka dhashay mid arki doona haddii alla yahay waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta loo barnaamijyo gudaheeda waxa laga rabaa qarannimada inaynu wada ilaashano oo wada daafacno inagu wax kasto dad kale oo isqabsada qoys la isqabsada walaalo isqabsada dadku nolosha waa la isku khilaafaa dadka talada siyaasadda ayaana waa laga yaabaa inay ra'yi guraadaan laakiin waxa laga simeeyahay qarannimada loo kala difaaceeda dhammaan dadka Soomaaliland waliba inta siyaasadda danaysa ee xisbiyada ah ee aqoonyahanka ah waxaynu ka midaysanahay qarannimada daafaceeda iyo inaan qarankaasi wixii dhicinaya aynu midaysnaano ninkii xeerkaa ka baxaa beecadigu soo raacay taana haleeyahay waxaan ku soo dhoweynaya Soomaaliland ha noolaato cadawgeedu ha jabo loo biqi maayo Soomaaliland. Wasalaamu calaykum warahmatullahi usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas.